saad arkaysaan waxaa halka kusoo gabagaboobay shir ay isugu yimaadeen dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub shirkaas oo ka soo qayb galeen oo hogaaminaya ra'iisul wasaaruhu waxa ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo dhinaca midowga Yurub ay ka yimaadeen safiiro fara badan oo ka kala socda wadamo kala duwan arrimaha looga hadlay waxa kamid ah saad qiyaasisaan arrimaha doorashooyinka laga hadlay arrimaha amniga laga hadlay horumarinta dhaqaalaha waxa laga hadlay caafimaadka laga hadlay waxyaalo fara badan xuquuq insaanka arrimahaas oo dhan baa laga hadlay iyo su'aalo iyo jawaab badan meesha la isku weydiiyay si fiican buu dhacay waa shir inta badan qodobka 8aad wada xajood qodobka 8aad midowga Yurub iyo Soomaaliya ayaa loo yaqaanaa article 8 dialogue mararka qaar ku dhowr bilood mar buu dhacaa shirkaasaan isugu nimi khudbadda ra'iisul wasaaruhu jeediyay tii wasiirada dhammaan iyo kuwa jeediyeen baxaan waxyaalo badan oo runtii isugu soo dhawaanay laba dhinac laga wada shaqeynaa arrimaha laga wada hadlay iyo saan soo kaashan lahayn mustaqbalka shir wanaagsan buu ahaa runtii waxaan rajeynayaa insha Allah shirka xigana qodobada laga hadlay kuwa ka duwan oo ka hadlaya laftigooda waxyaalaha markaa taagan ka wada hadallo heshiis baan halku seexanay heshiiskan seexanay oo ra'iisul wasaaruhu goobjoog ka ahaana waa heshiis ku saabsan horumarinta dhaqaalaha midowga Yurub ku bixinaya Soomaaliya kaas oo meelo badan oo dhaqaalaha wadanka saameyn ku leh wax ka qabanaya marka arrimahaas oo dhan bay ahaayeen intaas aan ku soo koobi karaa wixii faahfaahin diyaar baan